Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxay ahaayeen haliyeeye waqtiyada adag ay Somaliland oo dhani ay labadooda ku baxsato. Markii ay Somaliland gasho xaalad siyaasadeed oo adag, Somaliland oo dhan waxay xasuustaan labadooda. Xaaji Cabdikariin Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe, Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye marka laga hadlayo waa adigoo ka hadlaya nabadeyn iyo dib u heshiisiin. Waxa uu ka mid ahaa haldoorka Somaliland ee uu waqtiga iyo waayaha adduun ay Somaliland ku weyday, waxaanu kaalintii ugu weyneed uu ka soo qaatay nabadeynta Somaliland. waxaanu ahaa guurtii markay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ay adkaato loo noqdo. Xaaji Cabdi Waraabe ayaanay marnaba bulshada Somaliland si dhayalsi ah ku ilaabi doonin. marxaladan siyaasadeed ee adag ee ay Somaliland ku jirto waa waqtigii ay bulshada Somaliland tabi jirtay Xaaji Cabdi Waraabe, iyagoo tabaya kaalintiisii odaytinimo ee uu ka qaadan jiray marka uu dalku galo xaaladan siyaasadeed ee adag. Somaliland markay xaaladeeda siyaasadeed uu sidani u adkaado, waxa uu ka qaadan jiray kaalintiisa ku aadan nabadeynta iyo odaytinimada. madaxda iyo xisbiyada markaasi iskhilaafa waa ay qaadan jireen waxa uu ku taliyo. Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye sidoo kale Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar, gudoomiyihii ugu horeeyay ee golaha guurtida Somaliland. waxa uu ahaa astaantii nabadda Somaliland, waxaanu Somaliland uu ka soo saaray marxalada siyaasadeed oo adag. Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar waxa uu marar badan uu ka soo shaqeeyay xalkeedana uu keenay khilaafyo siyaasadeed oo soo kala dhex galay xukuumadihii uu la soo shaqeeyay iyo mucaaradkii waqtiga, iyo sidoo kale heshiisiinta beelo uu dagaal dhex maray. Somaliland markay xaaladeeda siyaasadeed uu sidan u adkaado, waxa uu ka qaadan jiray kaalintiisa ku aadan odaytinimada iyo nabadda. madaxda iyo xisbiyada markaasi iskhilaafana waa ay qaadan jireen waxa uu ku taliyo. marka uu qof kasta oo aqoon u leh Xaaji Cabdi Waraabe iyo Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar markay arkaan xaaladan siyaasadeed ee uu hadda dalku marayo, waxa markaliya maskaxdooda ku soo dhacaya labadaasi shakhsi.